waxaan ku salaamayaa salaada islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka kaalintiisa Cabdiraxmaan Cali Cilmi baa sheegay inaan anagu sheegnaabay ahayd gobolkii hogaamiyayaasha iyo abwaanada iyo bahda fanka iyo bahda aqoonta iyo inta dadka ugu mudan ay ka soo jeedaanba inaad tihiin waanu idin qiraynaa gobolkii ragga malaada hargeysadayada suldaanku baanu sheeganaa anagu oo kaas baanu magaranaysaa wixii kale oo dhan waa idinka xilli doorashana waa la joogaa haddii reer Burcaan wax oranayo waxaan oo lahaa waxaad soo doorataan mid dib idinku soo noqda oon hargeysa guri ka dhisan gaadhina ka iibsan xildhibaanadii Somaliland ay dooratay kuwa ugu wanaagsan laba ka mid ah marka loo eego say dadkooda dib ugu soo noqdeen xildhibaan Cali Xasan Maxamed Marreexaan iyo xildhibaan Maxamed Xaaji Axmed Waabeeye xildhibaanada aan filayay inay kuwa ugu wanaagsan yihiin baa Burco berigii hore laga soo doortay inta haddii aan ka gudbo kolley reer Burcaan ma soo falanqayn maayo aatayaan ku riixayaa wixii kale aan oranayo ayaan anigu oranayaa ninka uu sheegay Cabdiraxmaan Abees Mukhtaar Sheekh Xuseen Cali waxa la xidhay 1 Sebtembar 2015 markii uu sanad xidhnaa ayaan sanad guuridii xarigiisa kula dabaal degnay xarunta argagixisada loogu talagalay Hargeysa ku taala annagoo shacabada halkaan la geeyo markaas hal goornay horiyaa maxaa tamayay halka argagixisada lagu waday waanu maqaal baan qoray anu maqaal baan qoray qolba kaliya lagu xulay saad u waalato markaas aad shakiyaysaa oo talo waxaan ma waxay ka duubayaan ilaa waa meel aan hore warage iyadoo maxkamad lagu geeyo waxba lagu waayay ayaa raalli ah oo lagu raado lagala bakhayraya laakiin waxaan kaga samrayaa dee aniguna go'aan baan ku gaadhay inaan buug ka qoro markaan xirnaayo buug leeyahay waayahayga xabsiga oo imka ay ka murugoodaan ayaa dibadda yimi ninkaas Mukhtaar Sheekh Xuseen Cali in si uun kiiskiisa xukun looga gaadho oo ama dambi lagu helo ama lagu waayo sidoo Cabdiraxmaan sheegay ceelafweyn baanu nabadeyn u tagnay ama ugu yaraan wacyigelin markii hore sii soconayna xukuumadda ay diratay baa la ahaayo inama yaroo madaxweynaha uu adeeru yahay baad la socotaan bay nagu lahaayeen markii dambe aan soo noqonayna wadani baa indiray baa leeyahay madaxweynuhu daaqadii uu laga xidhay daaqadii ayuu laga xidho kuwii wax la saaray buu yiri waran oo la kulmaanaguna la kulmayno ayaanu nidhi inta kadib uu Cabdiraxmaan gabayga hirgal tiri dabeeto waxaan ku yiri waa lagu xidhay Cabdiraxmaanow way madaxweynuhu waa kii lahaa qolada guuleysatay baana ay u ahay adiguna qoladii baad ka mid tahay cid xaafadiisa oo la liisana lama ogola marka liinta cabaysa ku tala galbaaleed mala qoliyihii uu sheegay madaxweynihii laga adkaaday ayuun baa dhaliisha laga ogol yahay laakiin cid uu caaqil yahay ama oday yahay oo la liili karta madaxweynuhu haba yaraatee ma jirto isaga dawada sheegtay inta kadib aniga waxa la xidhay 4 January 2019 iyadoo shil gaadhiyo la sheegayo ayaa haddana la yiri hooyada kuma arkayso walaalka kuma arkayo oo xitaa ninkii meesha haystay uu igu yiri wax iga sheegay wallahi halkaas aan ka tooganaya laakiin waan ka sheegay waxna igu toogan kuma dhacay waxa la yaab leh salligeeda Hargeysa